qofka waxa uu jaanis haystaa janaabada inuu ka qubaysto ilaa waqtiga ay salaada ka baxayso. tanina waxay u wanaagsan tahay qofka caafimaadkiisa iyo diintiisa, balse dadka qaybo badan oo ka mid ah waxa ay wareegaan iyaga oo janaabo qaba. haddaba maxaa dhacayo haddii adiga oo janaabo qaba aad wareegto? si aan u bilowno muuqaalkeenuna sida caadada noo ahayd laagsan haddii aad ka heshay mahadsanid. qubayska janaabadu wuxuu waajib ku yahay qof kasta ee muslim ee qaangaar ah ee sameeyayna xaalad qubays ku waajibinaysa. qubayskanina wuxuu furfuraa qofka jinkiisa, wuxuuna siiyaa nashaad iyo farxad. sidaasina qofka muslimka ah waxa uu noqonayaa mid gutay waajibkiisa diiniga ah, sidoo kalena helay kafaara gud dembiyada yaryarka ah. diinta ma ay ogola qofka janaabada qaba inuu socsocdo, sidoo kalena maadaama janaabadu ay tahay wasaq macnawi ah, qofku waxaa mamnuuc ka ah inuu taabto kitaabka qur'aanka iyo inuu salaad tukado ilaa uu ka meeranayo. qubayskani janaabadu marka laga soo tagay inuu yahay amar diini, waxaa kale oo la ogaaday in caafimaadku qofkuna saameyn weyn uu ku leeyahay. dhacdada xiriirka jinsiga ee qofku waa marxalad ay gilgilinayaan physiologic ahaan dhammaan neerfaha iyo xubnaha jinka. burbur xoogan ayaa ku dhaca unugyada jinka, waxaana dibadda loo soo saaraa energy aad iyo aad u badan, waxaana kordha xawaaraha wareegga dhiigga. sidaasuna wadnuhu waxa ay bilaabaan in si degdeg ay u garaacmaan, qofkuna waxa uu bilaabayaa inuu dareemo daal iyo neeftuur. waxaa la sheegaa marxaladani enerjiga xoogan ee qofka ka baxayo waxa uu u dhigmaa orod masaafo 1500 oo mitir ah. dhacdadani kadib qofku waxa uu noqdaa mid daalay oo aan tabar lahayn. dhacdadani weyn ee gilgishay dhammaan unugyada neerfaha jinka kadib, qofka inuu qubaysto uu jinkiisu biyo ku qaboojiyo waxay u noqotaa nasiino, furfurid iyo nashaad iyo mid uu ka helo awood kale. sidaas ayayna diintu ugu waajibisay qofka muslimka ah inuu qubaysto, awoodda jinkiisuna dib u soo ceshto. horumarka cilmiga casriga kadib waxaa suuro gashay in wax badan laga ogaado xikmadaha ku qarsan amarada diiniga. diinta islaamku waxyaabaha ay mamnuucdo inta badan waxaa ku jiro xikmado cilmi ah marba marka ka dambayso cilmigu uu ogaanayo.